dowladda India ayaa ka xayirtay wadankeeda isticmaalka konton iyo sagaal barnaamij ee leedahay China. Barnaamijyadaas waxaa ugu caansan TikTok, Easy Browser iyo barnaamijyo badan. Haddaba hadda adigani daawanaya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma laga yaabaa dowladda Soomaaliya in awood leeg ay leedahay in barnaamijyo aad u waaweyn ee wadanka China leedahay sida TikTok inay wadankeeda ka xayirto? haddaba jawaabtaada qaybta commentiga noo soo qor insha Allah waliba sababtaad u leedahay. subscribe sar channelka sidoo kale gambaleelka furo si video walba kugu soo dhaco. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نما ساعات ملبو جوجتان يا سيول بانو مقليسان waa islaami magacayga waa Cabdi Daahir halka cashirka kala socotaan waa shabakada Sud Groups. Hadii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato channelkan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noogu sameyso ama channelkeena aad subscribe ku sameyso sidoo kale like saarto muuqaalkan maxay la arintaas aad iyo aad inoo dhiirigelinaysa fadlan like noo saara muuqaalka. Dowladda China ayaa xilliyeedii ugu dambeeyaba la ciyaaraysa India ciyaaro kala duwan oo dhanka siyaasadeed ah. hal dhaqdhaqaaq oo aad u weyn oo xitaa expertise ama qabiiro badan oo wadanka China marnaba qiyaasaynin in India sameey doonta ayaa noqotay in India konton iyo sagaal barnaamij oo wadanka China leedahay ee wadankeeda ka xayirto. ciyaartii siyaasadeed oo iska dawareega ahaa ee China ku wada wadanka India ayaa Hindi hadda la wareegtay ciyaarto idil oo hadda ayada guushaysa. haddaba sababtay dowladda India konton iyo sagaal barnaamij oo China ay leedahay uga saartay dalkeeda ay ku sheegeen inay tahay security purpose ama arrimo la xiriira amniga. qabiiro badan oo ka soo jeeda China ayaa kalsooni zaid ah ugu qabay India in productigooda ama businesskooda wadanka India si fiican buligooda ugu wada doonaan. balse India ayaa jawaab aad u kulul siisay China. laakiin hal mid ayaa dowladda China ilowday oo ma haba inay ka shalaayaan in India ay ka xayirto konton iyo sagaal barnaamij maadaama China ay awood u leeyihiin in wadankooda ay ka diidaan barnaamijyo badan oo America leedahay. maxaa diiday in India ayana aysan wadankooda u ogolaanin barnaamijyo China ay leeyihiin? qabiir aad u waaweyn oo arintani indheeyay ayaa sheegay in xaaladda China ay ka sii dari doonto haddii ay jooji waayaan xayiraadaha ay ku sameynayaan wadamada kale oo barnaamijyada kaliya ayaga sameeyaan wadankooda ku isticmaalaan. kuma ay ka doontay India waxay experts ka tilmaameen qabiirada in wadamo badan ay sida sameey doonaan oo barnaamijyada ay leeyihiin China la isticmaali doonin wadamada adduunka. haddaba su'aashaas weydiinta mudan ayaa ah dhaqaalaha India dhibaato ma ku imaan doontaa? jawaabtu waxay tahay maya. India shayga ugu muhiimsan ee ilaaliyaan waa security-ga oo security ay markasta muhiimada koowaad saaraan. sidoo kale maadaama India ku nool yihiin malaayiin dhalinyaro ah waxa laga yaabaa inay fursad ganacsi u noqoto maadaama barnaamij aad u muhiim ah oo aad u weyn wadanka India laga xayiro sida TikTok kale waxa laga yaabaa ama hubaal ah in India dhalinyartooda soo saari doonaan barnaamij kuwaas la mid ah sida TikTok oo ay leeyihiin taasoo laga yaabo xataa barnaamijyada India soo saari doonto in adduunka dhan laga isticmaali doono oo xitaa TikTok iyo barnaamijyo badan oo China leedahay hawada ka bixi doonaan. haddaba arintaas ayaa fursad weyn loo arkaa in dhalinyarta India ay business fiican ku furtaan ama horumar ay ku gaaraan. adaba ugu dambeyn waxaan rabaa inaan idin tiriyo konton iyo sagaal kas barnaamij kuwa ugu muhiimsan ee wadanka China leedahay oo laga xayiray wadanka India: TikTok, Share It, Easy Browser, Clash of Clans, Do Better Safer, Hello, Fitmate, Mobile Legend, iyo Do Privacy. intaas in ka far badan oo barnaamijyo aad u muhiimsan ay India wadankeeda ka xayirtay. haddaba su'aasha ugu dambeysay raw inaan idin weydiiyo oo u baahanahay inaad qaybta commentiga noogu soo qortaan qof walbana aan jeclahay insha Allah inuu soo qori doono ayaa ah dowladda Soomaaliya awood mu yeelan kartaa iyada oo awood mu leedahay application ay leedahay China in ay wadankeeda ka xayiraan sida TikTok oo kale? haddii awood u leedahana arintaas ma fiicanta in TikTok wadankeena laga saaro? haddaba insha Allah waxaan rajeynayaa inaad qaybta commentiga noo soo qori doontaan. waa maasiti magacaygu waa Cabdi Daahir halka cashirkan kala socoteen waa channelka Sud Groups. haddaba haddii markii ugu horeysay channelkan ay tahay waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe ku sameyso sidoo kale like saarto muuqaalkan. haddaba waxaan idin leeyahay sidaas iyo macsalaamo iyo khayr badan. bye.